ina xasuusiyay barnaamijkani dhowr sanadood waxay ahayd January 2006 markii ay dhacdadaasi dhacday Maahir Cusmaan ilaahay ha u naxariisto oo samiriye iimaan ka siiyo qoyskii qaraabadii uu ka geeriyoodayba iyo intii kale waalidiina Soomaaliyeed iyaguna dhibaatadaasi ku dhacday waa dareemi karaysan hooyo Caasha marka ay fasiraysay qofku ahaa Maahir inaan aan dambi ku jirin dhibaato ku jirin xumaan ku jirin gurigii u sii socda inay helaan 40 waraabayaal bay ahayn monster cases yani inay cunaan oo ay ku hordilaan stationka hortiisa horta dhacdo xun bay ahayd oo dhalinyarta Soomaalida ah iyo dadkii area deganaa reeka madana ka argagixisay bay ahayd inta kadib cases kale way ka dhaceen oo dila Sharmaarka Xasan oo dambi lahayn oo la midaba 2008kii maalmihaynu aasaasinay London Somali Forum inagoo shirka u fadhina isagana lagu dilay Abdullah sidoo kale Abdullah Jaamac Muuse oo isagana wiilashii lagu dilay ahayd baa la dilay runtii dhalinyar badan oo iyagu isdila oo Soomaaliya oo isku origina baa ay ka dhacdaan dhibaatadaasi oo dalkii ay gudaha wada joogeen haddii aanu soo noqdo Camden maxaan ka qabanay run ahaantii waxaan intaan aadan ogelin wax qabadka kow sababta ay caruurtan isku dilayeen maxay tahay كو هرت وحوي دنيرتا Soomaalida ah intooda faraha badan li waxa keena crime-ka ama dambiga ama isdilka darajada gaarsiiya wax weey qofku marka uu waxbarashada dibadda uga baxo ee iskuulka hooyadu inta u dirayso aanu ku maqnayn iskuul iyo waxbarasho dibadda uga soo baxo waxaad ogaataa ilmahaasi dariiqa kaliya u furan inuu noqdo inuu saaxiib la noqdo gangs members waxa loo yaqaan dadka dila kuwa dadka dhaca kuwa waxada iyo inuu dariiqyada istaago dabadeed uu vulnerable ama uu u nuglaado dadyowga noocaasi sameeya waxa weey kiiga qura ee ummadan wax ka hor joogsada waxa weey waxbarashada markuu saati sameeynaya ama key stage 3 waxa loo yaqaano uu ka baxo GCSE buu galaa GCSE maalinta dambayso waa secondary waxay Soomaalidu yaqaaneen dugsiga sare maalinta ka dhamaysato qofku wuxuu ku fikirayaa inuu sameeyo A level markuu dhameeyo wuxuu ku fikirayaa inuu jaamacad markuu dhameeyo wuxuu ku fikirayaa inuu shaqeeyo wuxuu ku fikirayaa inuu reer dhaqo oo wax sameeyo jaranjartaas waxbarashadu horta ay ku saabsan tahay maxaa waxbarashadu loo leeyahay kadib uu ka baxaya dhibaatada tan marka anagu ku dadaalnay inaan raahno waalidiintii iyo dhalinyarta laftoodii solutionkiina iyo xalkiina waxay ku jiraan inaad crime-ka dibadda ka joogtaan waxa uu ku jiraa inaad waxbarashada qiimaha ay leedahay aad ku dadaashaan taasi oo sameysay achievement award ceremony-ga ama xafladda aynu ugu dabaaldegna sanad kasta waxbarashada dadka lagu siiyo ay dhalinyar badan oo reer Camden maanta ay yihiin kuwa darajooyinka ugu sareeya dalkan Ingiriiska ka gaadhay SYDRC iyo London Somali Forum iskaashanayana ay wax badan oo lagu faano maanta tahay qaar dhakhtar noqdeen injineer iyo soo noqonayna wax qabadkeena iyo sida aad wax u qabateen barnaamijkan waa barnaamijka codka Soomaaliyeed anagoo wali ku guda jirna barnaamijkeena caawa waxaanu ka hadlaynaa crime-ka ama dambiyada ama sida aad la socotaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ay naftooda ayaga ay ku hayaan ama markii ay isku dilayaan kooxo mise xaafad kala duwan محمد آدن سيد الله سعودي ودن كانوا كنا قلنا سيمن لندن وحكي جرو جان كلا دوان ما ركت كلا دوان ومقعياله إن حافظ والبنا إن فور ما هنقطة مثل ساوث إيست جا ما نقطة مثل ويست جا هنقطة لحظة ذو حليه جان كلا دوان جان كاس أو ما ركت سكوت المامسدان إلى ما ركتي إيريا داس الدروغة كوجلان هدي إيريا داس جان كلا سوجلان إزدلان marka Soomaalidu dhihi karo Soomaalidu waxay ku dayanayaan dadkan kale aan la dhaqan maaragtay ku dhaqan wadankan sida Jamaicaanka iyo Nigeriaanka iyo Ghanaiska iyo kala maar darooga geesaha ku gado ayagoo kale maaragtay ku dayanayaan Soomaalidu dhihi karo dhalinyarada maanta Soomaaliyeed absolutely Ibrahim Nabil taasoo keenaysa horta marka hore waxaan had iyo jeer waxaan ka hadlayaa identity-ga dhalinyarada Soomaalida iyo dadkeena in badan aan fahansanayn yani dhalinyarada Soomaalida dhinaca doonaan baa ka yimaadaan waxyaalahan ay la qaybsadaan wadankan aynu deganay waxa kamid ah crime-ku kamid buu oo waxay aad ugu dhow yihiin dhaqanadan Ingiriiska aynu deganay badankoodu taasi markaa waxay keenaysaa inay ka miqno haddii ay asxaab la leeyihiin gangski inay iyaguna ka mid noqdaan wax la yiraahdo peer pressure baa jira ودنياردي مركي أي ميل كوسو وذا كرانة سكولة وذا تجان أي أصحاب أي نقدان تفكوس واحد داعي سيني مركا أي وحياة بدن أي وذا قبطان وحنا نكسن ي وحهم با وكان واحد وانا إن نفهمنا هو تو نكسن culture youth
wadankan aynu deganay iyo dee wadanadan westernka aynu ku noolnay halkuu ka yimi iyo wuxuu ku salaysan yahay taas aad u muhiima waayo markaad diyaarteed aad halkaa aad situationkaas oo kale aad ku jirto waad ku qasbanta inaad ka mid noqoto mujtamacii yani isolated ma noqon kartid keligii haddaad keligaa taagnaato dee waxaad vulnerable baad noqonaysaa waa lagu eryanaya maogta marka si ilmihii u noqdo ma ogtay de ilmo la arko oo xoog yani waa inuu ka mid noqdo markaa had iyo jeer gruubyada kala duwanee jira marka waxaa dhici karta de inuu markaa had iyo jeerna waxaa jirta dhalinyaro badan oo had iyo jeer popular oo popularismku laftirkiisu waxay lagu dayanayo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed maanta dadka ay ku dayadaan badana waa dadkan raabka qaada sida waxaad aragtaa 50 cent mise Tupac ha noqdo dadkan oo kale waa ogtahay inay qaarkood ba 9 xabadood ku dhaceen waliba ku heesay uu leeyahay aniga 9 xabadood baa u dhacday waa wali waan noolahay ma aragtay waxa laga yaabaa inay ku dayanayaan in nolosha uu nin walba xorba gaari weyn inuu ku socdo inuu taajir ku noqdo si ma aragtay dhaqso arrinkani waxa weeyaan waa pressureka kale jira tani malaha dee dhalinyarada badankooda ay kaga duwan yihiin waalidkoodii hore waxaa jirta de waxay arkayaan dhalinyaro ama iyaga lamida ama iyar ka weyn oo dee wata gawaadhi cajiiba oo ma garanaysa oo aan iyaguna de waxay doonayaan markaa taasoo kale in ay ka qayb qaataan oo isna gaari wuxuu doonayaa gaarigii dee watay ninkii uu shalay arkayay ama dhinaciisa deganaa ama iskuulka la tagaayo mashaydiis wata markuu arko tasna wuxuu sooranayaa maxaa ku diiday ku tilmaamayo sida aragtid markay raabka qaadayaan oo ay ku tilmaamayaan oo leeyihiin aniga drug deal baan ahay jidkan taagana qof xaafadii soo gali kara maal saasi laakiin ha ogaado hooyadii inaan kan gaariga wata ha ogaado hooyadii inay ku nooshahay housing state horta ko in ay income support ka qaadato inaan shaqo badan haysan dalkan dhibaatay naga haysato ha ogaado nolosha lagu korinayay ay busheerka riixayso subaxi ha ogaado nolosha noocaas oo kale ma aha inuu isbarbar dhigo nin taajira ama qiimo badan ama in yaro drugs wax ku noqday mentalityga ha sameeyo hatta trainerska kaba waraadinaya 150 ganiya waalidkiina awoodin oo noloshiisa survive gareeyaan waxbarasho ku soo baxo oo meel gaadho horta ha ogaadaan oo takale labaad caruurtan la isbool gareeyay laga dhigayo inay yihiin middle class inay yihiin oo kale waalidiintu realityga ha u sheegaan wixii ay afford kareeyaan ha kala hadlaan the real situation xaafada jirta ee dhabta ah aye bal insha Allah haduu la yiraahdo qadka ayaa maaragtay lagu jira daawadayaashana televisionka Universal anagoo ka hadlayna crime-ka bal waxaan weydiinaynaa su'aasha ah waalidiinta Soomaaliyeed bala socdaan caruurtooda mise dhalinyaradooda ama ubadkooda meeshii ay joogaan ama meesha ay marayaan ama xaalkooda sida uu yahay bal fikradaha aanu ka qaadano daawadayaashana caawa televisionka Universal qadka ugu horeeyo aanu caawa ka qaban doono wuxuu noqon doonaa hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam walaal magacaagii meeshaad ka soo hadlayso walaal Cabdirasaaq Bareelana ma ka soo hadlaya haya Cabdirasaaq fikradeed soo gudbisan lahayd anigu runtii waxaan rabaa inaan fikrad wax yar ku darsado barnaamijka waxaan rabaa inaan ilaahdo dhalinyarada Soomaalida marka laga hadlayo inta badan ma fahmayaan luqadda Soomaalida qaar fara badan marka waxaan jeclaan lahaa inaad barnaamijka qayb English ka dhigtaan si ay u fahmaan waxyaabaha ka hadlaysan waa fikrad wanaagsan waanu jecelnahay bal laakiin waxa laga yaabaa anaga muhiimadeena waa inaan horta waalidiinta wax u sheegno waalidiinta waan ku fahmay taas waan fahamsanahay inaad waalidiinta doonaysan fahamsiinsan arrinta laakiin iyaga laftooduna si ay waxa laga yaabaa qaar badan oo waalidiintooda la fadhiya laakiin aan fahmay wixii laga hadlayo si waalidkuna aanay badanaa English fiican garanayn hadda de muhiimada diisan waalidka af Soomaali uusan garanayn waad adagtaa maaragtay dhalinyarada inaad af Ingiriis wax ugu sheegto anaga muhiimadeena waa inay waalidka ay maaragtay aanu u sheegno maanta xaaladda Soomaalida wadamadan aan ku suganahay sida meesha maraysa si ay maaragtay laftigooda ay maaragtay aqoon kale ay aqoontan dhinacan adduunkan kale maanta ay dhalinyaradu ku nool yihiin si ay maaragtay u fahmaan ay u gartaan waxa maanta caalamka ka socda bal aan u gudbo Maxamed